daawadayaal waa guriga wiil yar oo ku toban jir ah oo loo magacaabo Ismaan xala dabcan la afduubtay waxaana la sheegay in la jir dilay oo midiyo ay ku taagnaayeen hadda waxaan rabnaa inaan soo booqano guriga waxaana ila jooga wiilka Abiis إسماعيل مع سكريم محمود عمر وكو 12 سنة جر شال قلب أيال لغا أفدوبتي مسجد كويا لحافظ بالحبي الدقمة بدا جر بلسي ألو كبد بادية أفدوبكا لكن رابع أيا كويا لأوغد جركيسا إلا 3 ميلود oo jirkiisa kamida ayaa lagu muday midi markii wiilka uu ninka afduubaha ka diiday inuu sii kaxaysto بوندو واسد لوقيا لوقا تديله صبح بوندو كرام ولا صح لوقا سنجلا يعني أنا لوقا مودي صح لوقا مجلا مع أزان بوندو صبح شوفو كنت كلي كذي ويجيب حي مركو كلي سان يجيب حي على أفكار سوي خور واخني صح مركا خلينا جين كده الله وقرا منا يبدو إنه مرلبات كعنت شيء عمل كعنت meelahan way diro gacanta askari laba gacmo marka laba gacmo ninkan inta soo baxday waa annu saar askari meel taagaliike askari معنا زكريم محمود عمر oo ah aabaha wiilka dhaawacan ayaa ii sheegay in muddo uu ninka tashkiilinay caruurta ku tukanaysa masjidka si uu ka xeesto mararka qaarna lacag shilimaad ayuu siin jiray xalay markii salaad maqrib ka baxay kadib ayaa wiilkayga nin afduubtay ninka muddo bilaayo wuxuu asaga iyo caruur kale saxabiyin isku dugsiyiin ayuu ka dhacsiin jiray anigu ku kulmeen masjid ku yaala masjid raxmad ku yaala bulshada ninka wuxuu ka dhacsiin jiray oo dhigi jiray tashkiilan ku wada anigu jees barahay magaciisa jees la yiraahdaa mataqaana dugdan keenay waxyaabo baahantina ka caawinaya hadan caruur yaraatay caruurtan waa jecel markuu yiri wuxuu siin jiray 2000 markuu sii jiray 5000 oo kala dhowr toban waa gaaraya marka wuxuu sameeyay muddo adiga bil amal caawinaya marka ilaa baaskiil raaca kirista markii salaada maqrib badan mataqaana masjidka raxmad buuxda oo ku isku kadana oo salaad maqrib hadama 22 jir lacag kale leeyahay casho ku soo cashay ninka sidii muddo ilmihi caruurti u soo baraayay oo tashkiilinay marka dambe waxa la gaaray xalay inuu wiilkayga oo wiilashii dhowr tobanka ahaa oo tashkiilinay oo kamid ah iyo laba kale la socotay ayaga inuu yiraahdo nakeen ma inta casho soo meelaan labada kale ka diiday wiilkayga xogaa la jilcanaaday wiilkayga baa nakeen abtiga baa nakeen abtiga mid diiday ma inta casho soo nakeen ninka ayuu wiilkayga wuu raacay anka degado oo degada ay markuu dhanka la aaday anigu buntu xoog soo xulay xagee wada oo habeen meesha ma aaday ma yuxuu dhaama taqaana gurinta xoog soo siinaa cashan ma soo siinaya lacag ma soo siinaa anigu markuu ka diiday ninkii ku isticmaalay anigu inuu jiro warshu anigu watan waxa ka dareemaya inay inuu kaliya kala baxo xabra ka mid jirkiisa xabra jirkiisa kamid kala baxo bariyahana arrimahaas way soo marka anigu markuu diiday ninkii toodada soo baxay iska dhig aniga marka inuu xogaa oo عبسيو كليدي marka uu bixi ayuu waalidka gidi macna Zakariya Maxamuud Cumar ayaa markale ii sheegay inuu aad ugu walwalay afduubka wiilkiisa allana uu ka barayo inuu bogsiyo marar qaar waxa uu ku qarwaa buu yiri isagoo toorey lagu madayo oo qaylinaya wallahi walwal aad waa dareen ka taa xanuunku leeyahay anigu mataqaanaa shay دويا ويلي دوغوريا لبدبا oo danay mataqaana si xaqra mataqaana tooro loo qaatay gilida laga galiyay gacanta bidix mataqaana goolaha mataqaana lalawada loo meel laga muday saddex meel ku muday dhacdooyinka adeega xalay waa kuwa ku soo siyaadaya magaalada Muqdisho dabcan shalay ay markii wiil yar laga afduubtay degmada Yaaqshi markaana laga baxay xubnaha kamid ah jirkiisa xajra qaadir ATV